تضانو ولا أنا نهاي تذالو نبده مسؤولينta iyo howlwadeennada gobolka Maroodijeex ayaa hambalyo bogaadin u diray Siyaad Maxamuud Cali Geele oo ah gudoomiyaha ku guuleystay waxbarashada gobolka Minnesota ee ka soo baxay xibsiga jamhuuriga ee wadankaasi. Warasaabka gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Cali Jeena yare oo hambalyo bogaadin u diraya muwaadinkaasi ku guuleystay waxa uu yiri waxa weeye sharaf weyn bay maanta noo tahay inagoo aan mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex Geesa inaan maanta dhammaan hambalyo u dirno Siyaad Maxamuud Cali Geele oo aniga walaalkay uga weyna oo isku aabay isku hooyanahay anigu waxaan Maxamuud Cali Geele ilaahay waxaan ka baryeynaa guusha uu gaaray isaga iyo dawladda Mareykanka in ilaahay hadii beedkeeda leeyahay hawlahooda ay ilaahay u fududeeyo sida anagu inta badan ilaahay ka barno ilaahay maartay hawlaha qaran aynu ilaahay nagu guuleeyo Siyaad waxaan leenahay hambalyo dawladda Mareykanka waxaan leenahay hambalyo intii dooratay iyo inta dooran ba waxaan leenahay iyaguna hadii beedkeeda leeyahay guuleysta wuxuu ku guuleystay waxbarashadii Minneapolis loo doortay marka intii dooratayna waxaan leenahay hambalyo intaan dooran waxaan leenahay hambalyo markii xigta anaga Somaliland dara ku dhashay Laascaanood reer Somaliland sharaf weyn bay noo tahay inaan hadii beedkeeda leeyahay oo hambalyeeno oo soo baxo qaranka Somaliland bay qiimo weyn ugu fadhidaa ilaahay waxaan ka baryeynaa في غير في سيدين سواء إلهي كبير سوي الدولة سي شعبك غير مريكان دورتي وحلنا يحس بجيسة الله يبارك فيه هم برياننا مركع كتاب شعبي غير سومالا وروح عندارسينا وش ينوسويتي وينوسويتي وحبارشدي كور كمنسوات أو مينيابوليس ونجير سومالا وصوب حي فرحت وين بينوطها شرف بينوطها يعني هذه بين قرن كنا مدحوين يعني وزارة دينا وحبار الصلاة وهدي على إنه فعلا إنه محفظا وتردون يرددين سام الله كبحضي يعني الدكتور سر كبحضي سروا عن وهم بلينا ودعينا كوي شعب جيسة يدك كيسكي وحتراه وحبرشة كعوية وحبرشة لا دورتين إن الله يكذبه أنا الله إلهي وقوليو أنا كنا إلهي أقوانت هذا يتدار كاسميسي سمعنا الله وفعه قول يا بشير بين سكوب هاي وهم بلينا قول يا بشير بين لنا sidoo kale hambalyo la mid ah ayaa waxa uu diray xogayaha gobolka Maroodijeex mudane Xamse Ciise isagoo ku hambalyeynaya muwaadinkaasi ku guuleystay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Minnesota ayaa waxa uu yiri ugu horeyn waxaan noo sharafaa maanta anaga ku hayna barsaabkii gobolka Maroodijeex Maxamed Cali Jeena iyo madaxweynaha Galida Axmed Maxamed iyo xogay gobolka waxaan maanta doonaynaa halkan ku hambalyeyno Siyaad Maxamed Cali Geele oo ah Jeena ama barsaabka walaalkii oo runtii ah nin weyn oo Somaliland oo ku guuleystay doorashada waxbarashada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isagoo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ka gobolaha waxaan doonaynaa ninkaas oo qiimo aad iyo aad u weyn u leh gobolka Somaliland inaan u hambalyeeyno xilka uu qabtay oo runtii uu ku guuleystay 4 bisha November 2014 xisbiga jamhuuriga ku soo baxay runtii waxaan leenahay Siyaad ilaahay xilka ku fududeeyo ninkaas dhowr goor horena wuxuu ugu yimid halkan xafiis ahaan oo runtii aan si fiican u soo dhaweynay ninkaas waxa weeyaan dadka qadiidaha Somaliland ee dibadda runtii ugu horeeya waxba gobolkeena oo ah waxtar badan ka gobol ahaan waxaan leenahay ninka aad iyo aad baan u support garanaynaa waxaan leenahay Siyaad Maxamed Cali Geele ilaahay xilka ku fududeeyo iyo waan ku hambalyeynaa ka gobol ahaan aad baan ku hambalyeynaa insha Allah bidilal kareem adigoo nabada nagu soo noqon leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geeyo meel daran ama geeyo meel daran